السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر هذا هرجاب أكاديمي ما أنتم حنسمعنا أنا ديزاين كان أو نخون دون انفيتيشن ديزاين كان مركا عبر كاستعماله وعبر أفرق مركا لوقي بي إفرطة مركا استعمال ترتا عبر والباو باهنتاي ان انفيتيشن ديزاين كعبر هذا ويكل دونا كران سو مركا عبر كمركا خفك وكود درسدا أم بايدينيسا عبر كاس أي أوسمينيسا مركا درتا مركا حسميسان إن دوكيمنت عصوب سي مركا أوسمين الديزاين كان وحكون فنسا سيفود قيبتا فايل كده وحدي دونتا نيو ama waxaa isticmaali kartaa shortcutka ah control n kadib markaa new file aad ku dhufto qaybtan ayaa markaas ka bilaabeysaa marka koowaad waxaad dooranaysaa cabirka marka aa u baahan tahay unitkiisa centimeter ayaa dooranayna kadib qaybtan ayaa markaa waxaa gelin doonaa cabirka so cabirka qaybta widthia ama balaca waxaa ka dhigaysaa 14.85 qaybtan kale waxaa ka dhigi doontaa 10.5 kadib qaybtan waxaad ku qoran doontaa magaca designka aad sameynaysid kadib waxaa dhigi doonaa invitation design kadib qaybtan waxaa dhigi doonaa create kadib waxaa sameyn doonaa inaa sameeyo designkan oo kale si aad designkan u sameeyo markii koowaad waxaa bilaabi doonaa inaa qoraalada qoro marka waxaad soo qaadan doontaa text tool halkan ku dhufanaysaa halkan ayaa ku dhufan doontaa kadib waxaa qori doontaa marka xaflad meher oo kale waxaa ku laabanaysaa move toolka si aad u weyneyso qaybtan ay ku aadinaysaa kadib waa soo weyneynaysaa sidoo kale waxaa ku aadinaysaa qaybta centerka marka waxaa jira fonti aa isticmaali doono loo yaqaano Phiologis Galis so fontias ayaa markaas soo dirsanaysaa linki hoose ayaa soo dhigi doonaa hadduu alidmo markaa aad qorto waxaa sameynaysaa fonti ayaa dooranaysaa waxyar soo weyneynaysaa qaybtaas kale kadib waxaa ku aadinaysaa centerka so isla touchstian oo kale soo qaado kadib waxaa sameynaysaa waxaa qoraysaa qoraalka kale so marka qoraalka kale badanaa wuxuu noqon doonaa sidaan oo kale waxaa sharaf weyn inoo ah inaad nagala soo qayb gashid xafladda arooska ama xafladda meherka so markaa qoraalka aa qortid waa soo yareynaysaa kadib markaa soo yareyso dabcan waxaa ka dhigi doontaa fonti caadi ah sida bobines camal aa isticmaalaysaa qaybta markaas lightka isticmaali kartaa ama regularka labadaba isticmaali kartaa almost hadda lightka kale isticmaalayna kadib waa soo yareynayaa so kan waxaa sameynaya marka sawirkaan ku celin doonaa kadib qayb markaa maraya sawir cusub ka dhigi doonaa sidoo kale qoraalka waxaa weeyaan wuxuu ka bilaaban doonaa saa ujeeda qayb markaa lifti ah kadib center ayaa dhigi doonaa qoraalka gudaha aan ka hadlaynaa center aligned kadib centerka caadiga pageka markaa soo dhig so qoraalka markaa sameyso waxaa ku xidho keliya magacyada kala duwan so magaca arid isticmaal so labada magaca qoray markaa midka kale intaa keeni doonaa saa ujeeda qaabkan oo kale u sameynaa marka fonti aa isticmaala muhiima inaad markaas ogsoonaato si markaas isku qaabka aa u noqono marka haddii aad kan doorto waxaa isticmaala fonti loo yaqaano freestyle script waxaa sameyn doonaa marka qaybta waxaa dhigi doonaa mis ayaa ka hormarsiin doonaa kadib cabdi xuseen waxaa la rabaa in la dhex geliyo shape marka kan ayaa marka haween doonaa marka waxaa sameyn doonaa inaa u bedelo fontigii waxaa meesha ku qori doonaa freestyle script ujeeda waa dooranaya kadib waa soo weyneyn doonaa so almost kanaa dooran kartaa kanna waxaa dhigi kartaa master maxamed okay idrobal toolka isticmaali kartaa click ayaa kusii jirtaa wuxuu sameynaa isla cabirkii isla fonti ayuu ka dhigi doonaa almost marka intoo kale soo dhig marka labadooda isla dooro align center dheh so waxyar soo yareey marka so sidaan oo kale meeshaan kale u dhig kadib marka shapekaa sameynaynaa so mid kamid inaa sameyno kan kale ayaa sameyno ayay noqonaysaa so shapekan oo kale inta ku sameynaynaa shapeka rectangle la isticmaal kadib le rounded kasoo dhig dhinacyada sidaan oo kale kadib marka hadda shapeka waxaa u isticmaalay stroke oo keliya ayaa ka dhiday so stroke aa ka dhidi doontaa so almost marka waxaa ku qoraynaa magaca labaad waxaa dhigi doonaa touchsti kadib click ayaa halkan ku siin doonaa magaca un baa ku daraynaa marka waxaa dhigi doonaa cabdi xuseen oo kale dhahay almost marka waa soo yareyn doonaa fonti waxaa rabnaa fonti caadi inaan ka dhigno sida bobines oo kale soo yareey marka intoo kale ku aadinaysaa so marka labadan center dheh oo isla dooro center align dheh qoraalka marka waxaa laga yaaba inuusan center ka noqon laakiin qaybta marka oo marka vertical center uu noqonaya kadib kan oo kale soo koobiyey marka halkan oo kale keyn waxaa sameynaysaa asina marka waxaa u bedeleysaa magaca kale marka labada magaca saa u qorno wax kale inooma dhina wax yar inoo dhiman waxaad soo qaadan doontaa insha allah baaraka allahu lakuma wabaaraka calaykumaa wajamaca baynakumaa fi khayr linkii hoose ayaan soo dhigi doonaa designka oo dhammaystiran insha allah so marka hadda waxba inooma dhina keliya waxaa sameynayna qaybta hoose kala qoranaynaa so marka labada icon soo qaado halkan ayaa keenaysaa soo dhaweynaa marka sameyn doonaa handi toolka isticmaali doonaa wax yaraa kor u qaadi doonaa
touches tool t ayaa ku dhufanaysaa halkan ayaa klik siinaysaa. Okay, marka waxaan qori doonaa Jazeera Mall just tusaale waaye ama hotel leh. So midkan dhamaystir markaas ayaa copy dhaysaa. Marka waxaan soo copyay. Waxaan rabaa marka inaan qoro taariikhda. Waxaan dhihi doonaa 2 bishii 8 oo kale 2025. Okay, waxaan sii yaree marka hadda waxaad samaynaysaa labadaan aad dooranaysaa kadib intoo kala keenaysaa. Marka shift la qabo markaad soo copyinaysid. So qaybta waxaan gelinaynaa marka waqtiga iyo soo kala maalinta. waxaan leenahay tusaale kale 2 saac. So 2 saac oo kale qoraynaa kadib qaybtan hoosena waxaan ku qoraynaa khamiis oo kale. marka hadda waxaa inoo dhimi marka inaan kalreeno sidoo kale sharaxaadii aan kusoo darno. dabcan sidaan loo daawacayo waxaa la rabaa marka wixii in kalar la siiyo sidoo kale sharaxaad loo sameeyo. So sharaxaadahan oo kale waad soo dejisan kartaa insha Allah Adobe Illustrator ahaan u soo dejisan kartaa adoo markaa kasoo dejin doono freebie. balse hadda waxaad samayn kartaa design-ka oo dhammaystiran ayaa wax soo dhigi doonaa qaybta hoose ee linkiga kala deji insha Allah. marka waxaad soo qaadan doonaa labada qaybood, qaybtan iyo qaybtan soo qaadan doonaa. So waad dooranaysaa kadib qaybtan kale aad dooranaysaa adoo markaa shift la qaban doono. So labadooda ayaa la soo doori doonaa kadib halkan ayaa keeni doontaa. soo daraajiray kadib halkan kale keen marka. So marka labadooda waa kana control minus d si markaas aad u aragto. So kala hand tool-kana isticmaali kartaa si aad markaa u sikiso. So marka waxaan samayn doonaa meel banaan oo ku dhufanaya mid kamid ah dooran doonaa. midkaan oo kale markaa doorto waxaan samayn doonaa qaybta hoose keeni doonaa kadibna kan ayaa dooran doonaa asina qaybtan ku aadin doonaa sidaan oo kale. So marka kan waa hagaajinaynaa xogo yar. marka waxaan sameynaynaa control minus d markaad doorato waxaad samaynaysaa xogo yar wareeji. marka aad dartaan qaybtaas saas ayaa u dhidaynaa. hadda marka waxaan soo qaadanaynaa background yar ayaan soo qaadanaynaa. So background asna mid kamid ah ka soo qaado ama labada dhinac soo qaado. dabcan labada dhinac aan ku isticmaal. So marka background waa kana soo dooranaysaa kaliya waxaad samaynaysaa soo daraajireynaysaa halkan ayaa keeni doontaa insha Allah. marka halkan aad keento waxaa kaliya u baahan tahay inaad dhexda ku aadiso align-kan isticmaal align center horizontal vertical lemar. So kadib gadaal ayaa marinaysaa. dabcan right click aad dhigaysaa kadib waxaad dhigi kartaa range kadib waxaad dhigi kartaa send to back. okay kadib waxaa weeyaan qaybta gadaal ayaa la keeni doonaa. So haddii aad meel banaan ku dhufto saa ujeed background uu soo muuqdaa. haddii arid background inuusan zaa'id u soo muuqan waxaad samaynaysaa wax zaa'id u yareynaysaa opacity. tusaale kale had 25 waaye haddii aad 30 ka dhigo kale si zaa'id uma soo muuqanayo balse wax yar waa la arki doonaa. So marka hadda saa ujeedaan design-kan hadda waa dhameynay kaliya waxa ka dhiman waxaa weeyaan waa color-ka kaliya. marka color-ka waxaan isticmaalnay qaybta markaa flowers ama ubaxyada ayaan isticmaalnay. almost marka eyedropper tool-ka aad marka waxaad samaynaysaa click ayaa halkan ku siinaysaa. So qaybta ugu habboon ayaa markaasi click ku siinaysaa. So kana color ka bedel. sidoo kale waxaad samayn kartaa extra light ayaa ka dhigi kartaa. sidoo kale storages-kan iyo qoraaladan ayaa color ka bedeli doonaa. qaybta qoraalka weyn waxaad siinaysaa color-kan oo kale. dabcan color-kaasi marka hadda waxaan rajeynayaa design-ka inaad si fiican u fahanteen. So design-ka qaybaha banaanka si aad u qoriso waxaad samaynaysaa view kadib waxaad ku dhufanaysaa trim view. marka hadda qaybaha banaanka waa la qarin doonaa kadib waa save garaysanaysaa oo kaliya waxaad leedahay save kadib waxaad ku qoranaysaa magaca u baahan tahay kadib waxaad samaynaysaa meesha u baahan tahay ku save garaynaysaa kadib waxaad dhigi doontaa save. hadda marka waxaa lagu save gareeyay file marka Adobe Illustrator ah. marka insha Allah cashirkeena maanta halkaas ayaan ku sameynaa. asxaabta u share garay si ay u faa'iideystaan. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.